kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee magaalada Hargeysa ayaa 4 iyo 3 uga soo badisay kooxda Baqdaadi ama xidigaha Gabiley ciyaar saaxiibtinimo oo sagootin ah loona dhigay kabtanka xulka gobolka Gabiley iyo kooxda wasaaradda maaliyadda Hargeysa waa kabtan Cabdiraxmaan Jaamac Muuse Dhaylo-aad. kooxda horumarinta wasaaradda maaliyadda waa magaalada Hargeysa ee 4 gool 3 kamida waxa uu soo dhaliyay Amiin Badeeco halka hal goolna uu dhaliyay Bahdoon Maariyo. kooxda Baqdaadi ama Gabiley Stars waxa 3 gool 2 kamida oo gool kulaagayaal ah u dhaliyay Maxamed Chufo halka gool ee kalena uu dhaliyay Cabdiraxmaan Mustafa. gudoomiyaha kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda magaalada Hargeysa Kamaal Maxamed Yuusuf oo malcab dadkan uga warbixinaya sagootinta ay u sameynayeen markaasi kabtanka gobolka Gabiley iyo sidoo kale kooxda heerka koowaad ee magaalada Hargeysa waa wasaaradda maaliyadda kabtan Cabdiraxmaan Jaamac Muuse Dhaylo-aad ayaa waxa uu yiri waxaanu safar ugu soo baxnay gobolka Gabiley magaaladiisa Gabiley safarkaanu soo baxnay gobolada galbeedka ugu soo baxnay waxaanu qabanqaabo ama ciyaar sabootina u qabanana sida uu sheegay Axmed Tayaqaran kabtankii kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee magaalada Hargeysa kabtan Cabdiraxmaan Dhaylo-aad oo wadanka dibadiisa waxbarasho ugu baxaya ayaanu maanta ciyaar sagootina aan ugu qabanana magaalada Gabiley waxa wada ciyaaraya labada kooxood ee kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee heerka koowaad ee magaalada Hargeysa iyo kooxda heerka koowaad ee Baqdaadi ee magaalada Gabiley waxaanu rajaynaynaa in ciyaartaasi u dhacdo si wanaagsan oo qurux badan waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa maayarka magaalada oo waxa weeyaan ka soo qayb galay si wanaagsan waxa weeyaan u soo qabanqaabiyay ciyaartan cid kastoo ka soo qayb qaadatay aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa maamul ahaan haddaanu nahay maamulka kooxda kubadda cagta heerka koowaad ee wasaaradda horumarinta maaliyadda anoo afkooda ku hadlaya madaxda wasaaradda horumarinta maaliyadda oo wasiirku ugu horeeyo gaar ahaan waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa agaasimaha guud agaasima Gurxan iyo agaasimaha qaybta waxa weeyaan finance-ka Marwo Asad oo oran karna waxa weeyaan safarkaan gobolada galbeedka ugu soo baxnay labada mas'uul waxa ka qayb qaateen inaanu safarkaasi noo fududaado oo wax alla waxaan uga baahnayn ay noo dhib yareeyeen. dhinaca kalena maayarka magaalada Gabiley waa maayar Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa isaguna balcab dadkan uga warbixinaya sagootinta loo sameeyay markaasi kabtankii xulka gobolka Gabiley iyo kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee magaalada Hargeysa ee kamida kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan magaalada Hargeysa waxaanu maayar Maxamed Amiin Cumar Cabdi uu yiri waxaanu ku sugannahay garoonka Mo Faarax Stadium oo lagu qabanayo ama ay ka socoto ciyaar loogu talagalay in lagu sagootiyo kabtankii xulka kubadda cagta ee gobolka Gabiley Cabdiraxmaan Jaamac Muuse Dhaylo-aad isla markaana ahaa madaxa ciyaaraha ee dawladda hoose ciyaartaas oo iskaga hor imanayaan kooxda wasaaradda maaliyadda oo ka tirsanaa iyo xulkii gobolka Gabiley oo kabtanka u ahaa marka runtii waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno labada kooxood ee sagootinta u sameeyayna runtii aad iyo aad baan ugu mahad celeynaa Cabdiraxmaan insha Allah taala waxaan u rajaynaynaa inuu safar khayr qaba Ilaahay uga dhigo oo si qurux badan baan u sagootiyeynaa runtii waa nin aad iyo aad dhalinyarta ugu culus gobolkana ugu cuslaa nin muddo kara oo dhalinyaro oo akhlaaqa leh oo ciyaartooya xilkii uu hayay kooxda kubadda cagta ee gobolka iyo xilkii uu hayay dawladda hoose labadaba runtii nin ku ammaanaa buu ahaa oo aad ka dareemaysaan xusaska kala duwan ee loo qabanayo sagootinta marka aad iyo aad baan u sagootiyeena mar haddii munaasabadda markaasi gobolka Gabiley gaar ahaan garoonka Maxamed Faarax Stadium ee magaalada Gabiley galbeedka Somaliland munaasabadda sagootinta loogu qabtay kabtanka xulka gobolka Gabiley iyo kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee magaalada Hargeysa waa kabtan Cabdiraxmaan Muuse Jaamac Dhaylo-aad waa kan gudoomiyaha kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee magaalada Hargeysa oo malcab mar kale uga warbixinaya munaasabadtan oo kala ah oo ay ku qaban doonaan magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal waxaanu markaan ka noqono caawa Gabiley arbacada waxaan u baxaynaa iyadana gobolka Awdal magaalada Boorame ayaanu isla ciyaartan oo kale kabtanka aan ugu qabanaynaa marka cid kastoo naga qayb gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa labada mas'uul aad baan ugu mahadnaqaynaa dhamaantiin waxaan leenahay Allah idin barakeeyo shukran assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhammaan bahda malcab oo isku duuban waxa ay markaasi
duco iyo markaasi hambalyaba iskugu darayaan kabtanka xulka gobolka Gabiley iyo kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee magaalada Hargeysa kabtan Cabdiraxmaan Jaamac Muuse Dhaylo-aad. Allah kugu nabadgeliyo safarka hawlaha waxbarasho ee dalka dibadiisa ugu baxaysana haddii alla idmo kii ku guuleysto oo ka midho dhaliya dalkiisa iyo dadkiisana wax ugu tara ayaanu ku rajaynaynaa haddii alla idmo. Axmed Taye Qaran, wararka Malcab, magaalada Hargeysa.